Assalaamu calaykum. Qof kastoo anaga naga mid ah markuu safrayo, safarkaasi wuxuu raacaa waxay tahay diyaarad ama yahay inuu dhulku safro. Sidoo kale waxaa qasab ah in safarkaas uu safrayo in uu qaato waxa la yiraahdo sahay. Sahaydaas waxay noqon kartaa dharkii uu xiran lahaa, cunadii uu cuni lahaa, haddii uu gaajoodo, cabitaankii uu cabi lahaa, haddii uu haraado. Sidoo kale waxaanu nahay insaan daciif ah, gafafkeena ayaa badan, dambiyadeen ayaa badan. maxaa diidaya inaan aakhiradeena u diyaarsano waxa la yiraahdo sahay. Addunya masra'atul aakhirah. Adduunyadu waa beer lagu beerto tan aakhiro. Sidoo kale qofku adduunyadu waa inuu camal wanaagsan ku shubtaa sida cibaadada, sadaqada iyo akhlaaqda wanaagsan. Sahada ugu fiican qofku uu qaadan karno waa alla ka cabsiga, inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka cabsado meel walba uu joogo. Sahada aad qaadan karto aakhirada waxaa ka mid ah inaad sadaqa baxsato. Nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ittaqun naar walaw bishaqi tamar. ka ilaashada naarta xitaa tamar jeexa inaad baxsataan sadaqa u baxsataan. Sadaqada ha yaraato ama ha weynaato waa sahay wanaagsan oo aakhirada ugu diyaarsan karto. Assalaamu calaykum.